dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa hore u bilowday tijaabinta nidaamka e-government oo ah nidaam casri isla markaana lagu kaydinayo hab kombiyuutarasiya mulkiyadaha dhulka ama guryaha. nidaamkan oo socday muddooyinkii ugu dambeysay tijaabadiisu ayaa duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sooteeko soo kormeeray habka ay shaqadu u socoto ayaa waxa uu ga warbixiyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta uu ku hawlan nidaamkan casriyeynta mulkiyadaha ee loo yaqaano e-government oo sheegay faa'iidooyinka ay leeyihiin halka ay shaqadu marayso. aad baan ugu faraxsanahay booqashada meeyarka maadaama sabtidii laga bilaabo uu joogsaday faylkii hore gacanta lagu saxeexayay ka soo bilaabmayay degmada dibadda u dhaadhacayay qolada dhulka iyo arkiifyada ku noqonayay faylkaasi muddo badan buu soo socday Hargeysa ku soo caanamaashay marka imika stage-kii ay hogaaminayeen maayarka iyo isbedel cusub in lagu sameeyo hadduu yimid maalimahanba waxa socday hadda 2 bilood iyo 10 cisho tijaabadii systemku uu ku jiray guul buu ku dhamaaday dadka muwaadiniinta ah ee doonayay in isdiiwaangeliyaan khaasatan degmadan Ibrahim Koodbuur tijaabadu ay ka socotay waa inuu qofku la yimaado ID card ama maxaan ku dhaca aqoonsigiisa ay hadduu Somaliland joogo oo reer Somaliland yahay ID cardki Somaliland ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay bixinayso dawladda hoose haddii kalena waa inay jirto maxaan ku dhaca baasaboor ama aqoonsi kale oo dawlad kale oo sharciya sida Ingiriiska Mareykanka iyo wadamada ay dadkeenu joogaan oo dhan la yimaadaan marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer Somaliland ee daliya dibadba jooga haddii ay dhulkooga sharciyeysanayaan in ay ID-yadooda ama aqoonsiyadooda markay imanayaan ay la yimaadaan si loogu diiwaan geliyo qofkii xaqlaha ahaa. sidoo kale iyaguna halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah bulshada kala duwan ku dhaqan degmada Ibrahim Koodbuur oo soo dhaweeyay nidaamka waxa la systemkan aad iyo aad baan naga anfacnay ugu leeyahay 3 bilood buu qaadan jiray faylku maanta 14 days aad iyo aad baan anfacnay ugu leeyahay. Thank you so much. nidaamkani waa nidaam fiican oo uga mahadnaqano dawladda hoose iyo maayirkaba waa nidaam aad u soo dhaweynayno. ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sooteeko. muddo waxaa socday tijaabadii ah in e-government dawladda hoose gebi ahaanba ay u wareegto iyadoo tijaabada degmada Ibrahim Koodbuur lagu qaaday khaasatan dhulka iyo sidii uu processku soconayay. waxaan dadka tijaabo uga dhigaynay intaa imika tusaale ahaan beeraha iyadoon la dhaxlin baa qof iibiya imika waxa weeyaan dadku waxa oran doonaan processku adag yahay ma ad ka laagso wixii sharciga ahaa oo dhan in qofku dhaxal koobtii keeno iibsigii keeno qofka la aqoonsado qofka wax iibiyay qofka iibsaday si ay mulkiyadda iyo lahaanshaha dhulku inoogu sugnaato taasoo kalifaysa in qofku wixii lahaa ay cadaanayso. kun ahaantii waxaan ku bilownay processka 14 cisho ma aha halkaan u socono waxaan u soconaa inuu faylku 3 cisho ku dhamaado laakiinse systemka loo geeyay imka 14 cisho waxay tahay in documentkii oo dhan la dhamaystiro iyadoo wixaasi marka ugu dambaysa la wada daabici doono inanka John Mitterki markuu tago baloorka wuxuu ku soo eegayaa isagoo portalkiisii sita xafiiska hadduu jiraa wan talaabo khalada ku dag halkaas laga saxayaa wax lagu oranayaa ku sax maaha oo systemkaasi ku wada jiraan ka bacdi saasi degmada kaga soo dhaadhacaysa waaxda cashuuraha iyo waaxda dhulka ku sameynayaan gudiga fulintu ku sameynaysa markuu saa wada dhamaado iyagoo documentarkiisii oo dhan u wada e-government ayaa loo wada daabacayaa وهل ما فايل كيسي أو ضابعان سيستم كنا كتشرا يسقط ضابعنا كيف يدا لوجي وحن قبوا قولوا إنه أي مجال عاصمة دجاجي مغلبات كنا واحد نقد نطاين أي مجالين كلو جدوتو ما هل كان بيلك الصعداء بشا إسل بشا جدي هذا بشا أكتوبر هذا تجابك كجس عندنا تجمعين ككلادن لكن دقمدا إبراهيم كودبور لو تجابي waxay noqon doontaa laga bilaabo shalay sabtidii inay si official ugu guurto oo fayl gacanta lagu sameeyo damajin dadweynaha waxaan leeyahay waxa idin taala in dhulkiini sharciyeysataan. Cabdiqaadir Cudi, Hoon Cable TV, Hargeysa.